asxaabta ku xiran shan media meel walba aad joogtaan kusoo dhowaada sheekadii libin jaceyl qaybteedii 6. waa subax jimco ah, saaka aabba warsame nuur waxa u casuuman asxaab ku dheer oo reer Dubay ah. subaxa si wada jir ah ayay Yasmiin iyo Falis u wada galeen hawshii adkeed ee subaxas u taalay, iyada midba midda kale garab u noqotay oo qadadii iyo casiiryadii si wada jir loo diyaariyey. hooyo Maryam ayaa maalintaa ka yaabaneed hablaheeda sida ay wax waliba xilli hore u diyaariyeen. markii ay soo idlaatay casuumadii aabe warsame nuur uu maanta xaafadiisa ugu sameeyey saaxiibo isaga qaali ku ahaa, markii ay martidii ay kala baxeen ayay Yasmiin iyo Falis isku heleen fursad ay iskula hadlaan. Yasmiin oo hadalka furta ayaa tiri, Yasmiin, ilaahay ayaa mahad leh oo howsha noo fududeeyay, maxaa inoo xiga? Falis, maxaa xigi lahaa waa in aan arrimahaada aan meel saaro, isla markaana aan mursal la soo hadlaa, waan huba inuu kugu farxi doono. Yasmiin, alla maxaad qalbi nadiif tahay oo aad qalbigana ii dhisaysaa. Falis, waxba ha ka cabsan abaayo, mursal ma filayo inuu ku diidayo, maxaa yeelay gabadhaas edabta iyo xishoodka isku darsata ayaa tahay. yuu yahay ninka adiga ku diidayo? Yasmiin, insha Allah kheyr ayay ahaan doontaa. markiiba cid kasta in ay meerato oo ay dhar bedelato ayay ku dhaqaaqday. Falis oo markasta cabsi weyn ka qabtay qadar ayaa in cabaar ah guriga isku celisay, halka Yasmiin ay deerka guriga iska fadhiisatay. Falis markii ogaatay inuu qadar baxay ayay soo baxday oo ay markiiba abaartay gurigii mursal iyo saaxiibkii Aadam ay deganaayeen oo aan sida uga fogeen. Khadiijo yaray oo wiilasha guriga ka nadiifiso ayaa ilika guriga isaga hor yimaadeen oo u sheegtay in wiilasha ay dhan yihiin. Falis oo furfurnaansho lagu yaqiin ayaa markii ay gudaha gashay oo ay aragtay iyada la wada casiriyeenaya ayay la soo booday. Falis, alla ma mar kale ayaan casiriyada ku soo gaaday, alla nasiib badaniya. mursal oo markasta aragtida Falis ku farxa ayaa yiri, mursal, maasha Allah, soo gudub qabow iyo kuleel maxaad cabaysaa? Falis, qabow, maanta ayaan shaqo ku daalay, oonkaba igama go'o. mursal, xaafadda in maanta ay si u mashquulsaneen waan dareemayay. Falis, haa, aabba ayaa asxaabtiisa oo Dubay ka timid casuumayay maanta, ee adiga xaalkaada ii waran, maanta waa jimco, waad nasanaysaa. mursal, haa, balse maxay kugu taalaa? waa taa dhammaaday, berrina la shaqo tegayo. Falis, maasha Allah, shaqada waa midka uu aadanaha uu ku sharfan yahay, ii waran adiga xaalkaada hoose ka waran. mursal, wallaahi waan kuu fiicanahay abaayo, adaa soo haray. Falis, maasha Allah, mid ma ku su'aalaa? mursalo, muddo waan isnaqaan, haddana wax badan kaama aqaan. mursal, haa, i weydii. Falis, horta gabar saaxiib ma leedahay oo naftaada ay nolosha la wadaagi lahayd ma xulatay? mursal inta uu qosla ayaa uu yiri, mursal, Falis, maxaad maanta arrintan ku keentay? waaba iga yaabisay. Falis, ii sheeg, mursal ma jirtaa? mursal, maya. Falis, hore ma jirtaa gabar aad jeclaatay mise abid wax ma jeclaatay? adigase ma lagu jeclaaday oo jeceyl gabar ma kula timid? mursal oo si markaan rajo isku gelinaya ayaa la soo booday. mursal, haa, waa jirtaa gabar aan jeclaaday, laakiin. Falis, laakiin haye? mursal, waxaan ogaaday in ay nin kale jeceshahay, sidaas ayaa ku daayay, ilaan waxaan dareemay sida ay ugu faraxsan tahay, waana u daayay. Falis, maasha Allah, nin wax fahmaya ayaa tahay. gabadhii adiga ku hesho waan hubaa in nolosha wax dhibaya aysan la kulmi doonin, ilaan adiga ayay ku haysataa. mursal, maxaad ku keentay su'aalahan maanta? Falis, wax kale maaha, ee waxaa jirta mursalo in walaashay Yasmiin ay kaa heshay oo ay ku jeceshahay, isla markaana aysan kuu sheegan karin, waana sababta aan wax badan ku doonayo in aan noloshaada ku ogaado. mursal, afkala taag ayaa ka soo haray. Aadam oo aan ka fogan isla markaana maanta oo dhan sheekada la socday ayaa soo dhex gala oo ku yiri, Aadam, Falise waa ku sidee? qof ilbaxana waa tahay, miyaysan wanaagsana in cidda jacaylka haya ay sheegato? midda kalena ma isweydiisay in mursal uu aqbali karo ama uu ka helay? ilaan cid kasta dooq u gaar ah ayay leedahay.
Felis waa runta Aadam balse ma qabo in walaasha ay jirto cillad u gaar ah oo lagu nici karo. Inta gabaree lagu xulan lahaa waa ay leedahay. Aadam si kastaba ilama wanaagsana in aad afhayeen u noqoto Mursal. Qadarinta uu kuu hayo darteed noloshiisa adiga ha u go'aamin. Felis aamusnaan ayaa ka soo haray. Mursal oo inta hadalka socday dhulka ku fororay ayaa yiri, Mursal, Yasmiin waa gabar fiican, waana hubaa ninkii hela inuu ku qanci doono, laakiin dhibtan iminka qaba ayaan u aqbali karin in ay noloshayda jacayl kale aan ku furo. Felis micnaha jacaylkii hore ayaa weli dareemaysa. Mursal haa, maxaa yeelay ma sahlana in jacaylka kugu horeeyay aad si sahlan ku ilowdo. Felis waa runtaa balse Mursaloo sidaad adiga u hungowday jacaylka walaashayna sidaa ha ka dhigin. Waa huba in ay ku ilowsiin doonto. Aadam, Felis aniga waxaa ila wanaagsan in aan hadalka intaan aad ku goyso, maxaa yeelay Mursal ma karo in xilligan uu jacayl sameeyo isagaaba kii hore la taahayo. Felis waa tahay Mursal, waan sii baxayaa, waana fahmi karaa jacayl lagu hungooba dhibta uu leeyahay, balse mid ogow in aad tahay shaqsigii ugu horeeya ee ay walaashay jacayl u qaado. Si kasta kheyr ayaan u rajeynayaa. Felis markiiba albaabka ayay abaartay balse Mursal ayaa ku yiri, Mursal ma aqaan waxaan ku iraahdo Felisay, si kastaba waxaan siinayaa fursad intaas oo aan ku iloobo noloshii hore. Felis maasha Allah, waad mahadsan tahay Mursal, waxba ha ka cabsan, waan huba waa ay ku cajabin doontaa. Mursal balse ha u sheegin in aan horay gabar u jeclaa, una sheeg in caawa aan u imaan doono. Felis oo farxad la duuli rabta ayaa ilinka ka baxday. Aadam oo ka xumaa sida uu arrinka u dhigay saaxiibkiis ayaa markii uu hubsaday in Felis ay baxda ayaa ku yiri saaxiibkiis, Aadam, Mursal walaalow maxaa samaysay? Mursal maxaan kale oo aan yeeli lahaa? Yasmiin waa gabar fiican. Aadam laakiin ma jeclid. Mursal laakiin iyada ayaa ay jecel. Aadam aniga waan ku fahmayaa. Felis ayaa la murugootay markii ay arrinta ay halkan u timid. Maanta ay ku guuldareysatay, balse ogow in dhinac aad naftaada jaxiimo geysay, tanina ay tahay mid aad weliga Felis ku heleelin. Mursal waan ogahay, laakiin waa naf aan jeclahay, waxa ay ila timidna kama diidi karo. Aadam jacaylow xaal qaado, bal dacartan aad qasatay aan arko sida aad u cabto. Mursal insha Allah kheyr ayay ahaan doontaa. Aadam isaga oo ka xanaaqsan saaxiibkiis ayaa uu ka baxay guriga. Mursal halkiisa ayaa uu iska fadhiyay, isagoo naftiisa ka dalbada in ay adkeysi la timaado oo waayaha meesha uu dhiga ay aqbasho. Asxaabteeda sharafta iyo qiimaha lahow la socda qaybta xigta. Hadduu eebba idmo jimcada soo socota, like, share, comment iyo subscribe na ha ka iloobin. mahadsanidin.